inta la xaqiijiyay 5 qof ayaa dhintay 4 kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii dablay beelad hubaysani ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa magaalada Ceel-Afwayn ee gobolka Sanaag dadka dhintay ayaa kala 3 dumar ah iyo 2 nin sida uu telefishinka Home Cable u xaqiijiyay maayirka magaalada Ceel-Afwayn Cabdiraxiin aw Yuusuf Axmed markaa waxa dhintay 2 dumar ah 3 nin 3 dumar iyo 2 nin baa ka shanta saafisay ilaa 4 qof oo dhaawac culus noogu celi maxaa dhintay 3 dumar iyo 3 dumar iyo 2 nin iyo 2 nin baa dhintay imisa dhaawaca waa 4 laba waa aad culus 2 nin baa aad culus marka ilaa hadda maxay xukuumaddu tallaabo qaaday aqoonta kale ciidamada meesha soo dhaxgaleen xabadii way joojiyeen kulli qoliyii deegaanka soo qaadanaya dabaqada kooda marka ciidan weerarka soo qaaday ma labadii beelood ee awalba ku dagaalami jiray Ceel-Afwayn baa mid kamid ah beel kamid ah Xasan Galayd wararka Home Cable Hargeysa